السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. إلهي بقى مهلا سوكان كاني ما أنت إنكم نبض قبنا National Coordination كي Health and Nutrition كا سوكان كاني أيام مهلا marka ugu horeysa waxaan doonayaa inaan u mahadnaqo dadkii ka soo qayb galay ama ka soo qayb galayaasha gobolada iyo ka yimi iyo wasaaradda centerka iyo hay'adahan wada shaqeynaba ugu horeysa waan idin mahadnaqay inaad ka soo qayb gashaan soo ajiibtaan martiqaadkan idin martiqaadna inaad ka soo qayb gashaan shirka wasaaradda horumarinta caafimaadka halkan jooga madaxda hay'adaha caalamiga ee nala fadhiya marti sharafta kale ee shirka fadhida السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. runtii maanta wasaaradda qiimo weyn ay u leedahay inaynu qabanno kulankan oo ah semester review meeting runtii wuxuu ahaa inuu quarterly noqdo ama uu saddex biloodkiiba hal mar uu noqdo laakiin xaaladaha jira ee faraha badan ee wasaaradda iyo qarankaba jira oo ay ka mid yihiin emergenciyadu ayaa inoo saamixi waayay inuu sidiisii uu noqdo oo uu saddex biloodkiiba mar noqdo sidaa daraaddeed waxaynu maanta u joognaa inaynu lixdii biloode hore aynu eegno innaga oo lixda biloode dambena eegi doonna haddii alla yidhaa ee bilaha soo socda oo labadaas ayaynu kusoo sanadkan kusoo koobi doonnaa haddii uu alla yidhaa shirarka caynkan oo kale ah ama coordinationku wuxuu muhiim u yahay dhowr waxyaabood marka horeba wuxuu muhiim u yahay iska warqabka xarunta dhexe iyo gobolada iyo degmooyinka dalka iyo hay'adaha aynu wada shaqaynta leenahay inay meel isugu yimaadaan oo la wada hadlo oo wixii dhibaato ah jira meesha laga saaro wixii si wanaagsan u socdo hore loogu sii socdo meelaha ay jiraan gaabka iyo dhibaatooyinku la address gareeyo oo laga howlgalo isla markaana wixii xog iyo aqoona ee la hayo la isdhaafsado waxa kale ay keenaysaa iyadoo wasaaraddu ay tahay wasaaraddu qaran oo mas'uuliyiintu ay isbedbedelaan gobolada iyo degmooyinku in mas'uuliyiinta cusub ee gobolada yimaada iyo programmada yimaadaana ay markaa iyaguna xoggaal u noqdaan hawlaha socda oo isbarashana ay timaado laga faa'iideysto casharna ay u noqoto qolooyinka cusub sidii ay ula jaan qaadi lahaayeen iyaduna waa mid kale oo ka mid ah faa'iidooyinka uu runtii uu leeyahay shirarka caynkan oo kale ah shirkan oo aynu ku eegi doono lixdii bilood hore xaaladii caafimaad iyo nafaqo ee wadanka waxa kale oo iyaduna muhiim ah oo meesha ka maqnayn oo aynu eegi doonaa emergenciyadii jiray iyo kuwa aynu imiga ku jirnaba wixii nooga qabsoomay waxay noo qorshaysan iyo sida looga howlgalayo iyaduna noqon doonto dood weyn oo kulay ku jiri doonta ajandaheena iyo kulankeenanba waxaan aad iyo aad uga mahad celinayaa ka soo qaybgalayaasha innagoo ku jirna xaalad adag oo runtii xaalad degdeg ku jirna haddana ka soo baxay shaqooyinkii ay gacanta ku hayeen si ay shaqo kale oo muhiim ah oo qaran ay halkan ugu yimaadaan waxa kale oo mahad celinayaa hay'adaha aynu wada shaqaynta leenahay oo sida runta ah ee wasaaradda la barbar taagan wixii taageero ah ee marba ay wasaaraddu u baahato ee ay uga baahato dhinacooga wasaaraddu waxay ballan qaadaysaa sidii ay hay'aduhuba ballan qaadeen iyaduna wasaarad ahaan waxay ballan qaadaysaa inay wada shaqayn diiran iyo partnership wanaagsan ay la yeelato dhammaan hay'adaha maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ahba ee caafimaadka kala shaqeeya runtii taasi waa muhiim wasaaradduna keligeed ma socon karto oo waxa weeyaan dunida oo dhan partnershipka iyo istaageersiga iyo wax wada qabsigu waa uu jiraa wax wada qabsigaasi waanu soo dhawaynaynaa diyaar baanu nahay dhinacayaga waanu kala shaqaynaynaa waxaliya wixii loo baahdaa hay'adaha caalamiga inaanu u fududayno hawlaha ay hayaan iyagana waxaan ka codsanaynaa inay ixtiraamaan xeerarka wadanku uu leeyahay iyo jiritaanka wadanka oo ay nagula shaqeeyaan qaabkaas ay nagula shaqeeyaan oo waxaanu doonayno ay nagula shaqeeyaan baan iyagana ka codsanaynaa waxaan ku soo gabagabeynayaa inaan u mahad celiyo qof wal oo halkan jooga waxa kaloon doonayaa inaan iyadana hoosta ka xariiqo
2 maalmood way nagu yar tahay marka la eego hawsha inoo diyaarsanaya ajandaha inoo yaalla baaxadiisa waxaan aad iyo aad idinkula dardaarmayaa in la yareeyo socodka iyo waqtiga dheeraadka ay naga lumaya labadaba si looga faa'iideysto waqtiga yar aynu haysano isla markaana wax la marxiyo waqtiba ugu wanaagsan aynu waqtigeena marxisano oo aynu runtii ka faa'iideysano waqtiga yar aynu haysano aad iyo aad baad u mahadsantihiin ka soo qaybgalkiinu aad iyo aad ayuu muhiim u yahay samaha guud ee wasaaradda caafimaadka isduwayaasha madaxda waaxaha wasaaradda xubnaha ka socda ee matalaya hay-adaha kala duwan caalamiga iyo kuwa internationalka labadaba mar labaad waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii anoo ku hadlaya magaca UNICEF iyo magaca hay-adaha fursad ayay noo tahay maanta inaan halkan isugu nimaadno oo in isku weydaarsano waxqabadkii laga qabtay gobolada Somaliland muddada 6 bilood ee u horeeyay ee sanadka fursadani waa fursad muhiim u ah oo ay tahay in si joogto ah la isugu yimaado oo la isku weydaarsado wixii la qabtay wixii hirgalay wixii laga bartay wixii carqalad ka soo baxay fursadna ay noo siiso dhammaanteen in laga gaadho sidii loo xallin lahaa ee hore loogu qaadi lahaa ama loogu socon lahaa fursadani waxay muhiim u tahay gaar ahaan inaynu halkan ku kulmi doono isduwayaashii gobolada iyo hay-adihii ka shaqeynayay gobolada marka laga taga xarunta ay noqon doonto maanta iyo berri fursad la isku weydaarsado waxyaalaha la qabtay waxna lagu kala barto waxaan ballan qaadaynaa hay-adahaan in wasaaradda caafimaadka aan kala shaqeyno sidii hore loogu qaadi lahaa caafimaadka iyo nafaqada bulshada Somaliland hay-aduhu waxay qayb ka yihiin fulinta adeegyada caafimaadka iyagoo ka wakiila wasaaradda caafimaadka lana shaqeynaya heer gobol iyo heerka xarunta labadaba waxaa ilaahay ka rajaynayaa in labada casho aynu isweydaarsan doono wax badanna kala baran doono ballanqaadna waxaan samaynaynaa hay-adahaan inaan diyaar u nahay inaan wasaaradda xoojinno aqoon ahaan iyo wixii loo helayo sidii adeega caafimaadka looga midhodhalin lahaa caafimaadka hooyada iyo dhallaanka iyo waayeelka Somalilandna kor loogu qaadi lahaa. Assalaamu calaykum waraxmatullahi